waxaana wanaagsan dhammaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka qodobada aan xilligan idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Iran oo bedeshay xeelada dagaalka kadib markii ay si lama filaan ah u weerartay safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga dowladda Iran oo kordhisay in ay markaan weerarto xarumaha diblomaasiyadda ee dalalka Khaliijka ee fadhigiisu yahay Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku hanjabay in ay si degdeg ah uga aarsan doonaan Iran isla markaana ay isticmaali doonaan gantaalo casri ah waxaanu idin soo gudbin doonaa dawladihii Carabta oo cabaadkii ka dhamaaday kadib markii duqeymo aanan kala joogsi lahayn ay dawladda Iran ku ekeysay waxaanu soo qaadi doonaa warbixinadii ugu dambeeyay qorshe culus oo Mareykanka uu maagan yahay oo ka dhana Iran Israel oo ku dhawaaqday in ay caasimadda Tehran ku garaacayso duqeymo aanan horey loo arag iyada oo ugu baaqday shacabka inay isaga baxaan magaaladaas iyo xulafada Mareykanka iyo Israel oo wada qorshe ay ku naafeenayaan awoodda Iran macluumaadii ugu dambeeyay ee xaalka bariga dhexe oo aad u qasan ayaanu idin soo gudbin doonaa wararkeena kale waxa kamid ah xogta xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo si weyn u kacsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo damacsan in uu dalka geliyo xaalad aanan caadi ahayn marka la ansixiyo dastuurka cusub iyo qorshe u muuqda mid lagu ridayo xukuumadda oo soconaya xilli wasiirro badan ay diidan yihiin ansixinta dastuurka cusub iyo Turkiga oo hub nooc cusub ah ku tijaabinaya Soomaaliya iyo arintan oo shaki xoogan abuurtay qodobadaasi ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like sar sidoo kale si share garay la sii wadaag qiyaarta kale ee kugu jirta baraha bulshada mahadsanidin dhamaantiinba aynu ku bilaabano wararkeena haddii aynu ku horeyno xaaladda bariga dhexe aad iyo aad ayay xaalkaas u qasan tahay isla markaasina loo dareemaya cabsi ee ku saabsan in dagaalka gobolka uu fido isla markaana uu isku bedelo dagaal weyne dunida ah waxaana arintaasi ka digay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay in dagaalka hadda ka soconaya Iran iyo sidoo kale bariga dhexe uu yahay mid aanan ahayn dagaalkii saddexaad ee dunida laakiinse waxa uu Mr Putin sheegay in sida uu wax u wada hadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay keeni karto in dunidu ay gasho dagaalka saddexaad waxaana uu sheegay in markaasi Trump uu garanayo dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii la isku weeraro hubka wax gumaada ee nuclearka loo yaqaano taasi oo muujinaysa in Ruushka uu haatan digniino markaasi sarbeeba u dirayo dawladda Mareykanka haddaba Iran ayaa bedeshay xeeladaheedii dagaalka waxa ayna markaan bilowday in ay garaacdo oo ay duqeyso xarumaha diblomaasiyadda iyo safaaradaha Mareykanka uu ku leeyahay dalalka Khaliijka saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa la baahiyay isla markaasina la arkayay muuqaalo ku saabsan safaaradda Mareykanka ee magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga oo gubanaysa kadib markii halkaasi diyaaradaha droniska ah oo ay aad u isticmaasho Iran lagu duqeeyay safaaradda Mareykanka ee Iran ee Sacuudiga waa safaaradda Mareykanka ee Sacuudiga arintani ayaa waxay abuurtay xaalad markaasi aad iyo aad u kacsan iyada oo Mareykankana uu arintaasi aad iyo aad uga carooday oo uu uga xanaaqay dawladda Sacuudiga ayaa xaqiijisay in la weeraray magaalada Riyadh gaar ahaan safaaradda Mareykanka halkaasi uu ku leeyahay sidoo kale waxa la weeraray xarun kale oo diblomaasiyadeed oo Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Riyadh oo ah xarunta diblomaasiyadda oo halkaasi isugu yimaadaan ama marka ay yimaadaan diblomaasiyiinta shisheeye ay degaan magaalada Riyadh goob kamida tan ayaa waxay ka dhigan tahay in markaasi ay bedeshay xeeladeedii dagaalka dawladda Iran sidoo kale waxa ay beegsatay safaarado kale oo ku yaala dalalka Khaliijka ee uu markaasi xarumaha ku leeyahay Mareykanka haddaba Sacuudiga waxa uu hore u sheegay in uu jawaab celin ka sameyn doono falalka ay Israel ku dandansanaydo madax banaanida Sacuudiga waxaana haatan soconaya dadaalo kala duwan oo Sacuudiga uu ku doonayo inuu dagaalku ku galo inkastoo uusan awood badan u lahayn oo uu isaga dhicin karo Iran dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay weerarka lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin Sacuudiga ayaa waxa uu sheegay in ay si degdeg ah uga aarsan doonaan Iran isla markaasina ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn waxa uu sheegay in hadda amaba 24 saac ay soo socdo ay qorsheenayaan mid kamid ah duulaanadii ugu cuslaa oo ay ku keenayaan dawladda Iran tallaabadani ayaana waxa ay tahay mid cabsi weyn gelinaysa xaaladda waa mid ka sii dari karta isla markaasina ku qasbi karta Iran laftirkeeda marka khasaaro xooggan la gaarsiiyay in iyaduna ay isticmaasho hub aanan caadi ahayn oo ay dhibaato culus ee markaasi ku geysan karto isla markaasina ay ku beegsan karto saldhigyada muhiimka ah ee ku yaala
dowladaha carabta. dowladaha khaliijka ayaa aad iyo aad arrimahan uga cabaadaya, waxayna u arkaan mid markaasi aanan suurtagal ahayn sii socoshada. dowladaha qatar iyo imaaraadka ayaa la soo wariyey ama la soo ogaaday in ay ka dalbadeen Mareykanka in uu soo afjaro arrintan, islamarkaana xaaladda wadahadal la geliyo, maadaama imaaraadka qatar iyo dowladaha kale ee khaliijka ay haatan bilaabeen in ay khasaaraan lacago balaayiin dollar ah, maadaama isku socodkii iyo dhammaanba howlihii socday ee ganacsiga uu hakad weyn galay, islamarkaana dhibaato xoogan ay halkaasi ka taagan tahay. Iiraan waxa ay ku adkaysanaysaa in ay isticmaali doonto gantaallo casri ah haddii tallaabooyin kale loo soo qaado. waxa ayna sidoo kale duqaysay Israa'iil, oo nidaamkii difaaca Israa'iil xalay waxaa la arkayay isagoo qalqal badan ku jira, islamarkaasina dhibaato badan ka maraya in uu qabto oo uu markaa xajiyo gantaaladii iyo diyaaradihii droonka ee ka imaanayay dhinaca iyo dowladda Iiraan. dhinaca kale, dowladda Israa'iil ayaa duqaymo culus waxa ay ka fulisay caasimadda Tehraan saacadihii u dambeeyey, waxayna ku garacday gantaallo iyo sidoo kale duqaymo aanan caadi ahayn. sidoo kale, Israa'iil ayaa waxa ay shaacisay islamarkaasina ka dalbatay shacabka ku dhaqan caasimadda Tehraan inay halkaasi isaga baxaan, maadaama ay sheegtay in ay halkaasi ka fulinayso duqaymo culus. wararka iyo macluumaadyada la helayo ayaa waxay sheegayaan in xulafada Mareykanka iyo Israa'iil ay markaan wadaan qorshe weyn oo ay ku doonayaan inay ku naafeeyaan awoodda Iiraan, islamarkaasina ay beegsadaan saldhigyada muhiimka ah ee ay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan iyagu ku sugan yihiin ee ay ka soo qaadayaan weerarada. Mareykanka ayaa hore u sheegay in dhinaca badda lagu naafeeyey Iiraan, islamarkaasina la quusiyey maraakiibtii dagaalka ee dalka Iiraan uu markaasi lahaa. si kastaba ahaatee, dagaalka bariga dhexe ayaanan la ogeyn xilliga uu istaagi karo iyo sida uu ku dhammaan karo iyo cidda markaasi guulaysan karta, laakiin Iiraan ayaa ilaa hadda u muuqata mid isdifaacaysa, islamarkaasina muujisay awood dheeraad ah, maadaama ilaa iyo 4 cisho ay si toos ah u dagaalamayso, weliba quwado ka awood badan ay markaasi la dagaalamayso. wixii soo kordha waanu eegi doonaa. markaana, xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa si weyn u kacsan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa damacsan in uu dalka geliyo xaalad aanan caadi ahayn marka la ansixiyo dastuurka cusub. sida qorshuu yahay, maalinta Arbacada ah ayaa la doonayaa in la meel mariyo oo la ansixiyo dastuurka cusub ee wax ka beddelka lagu sameeyey, kaasi oo madaxweynuhuna uu saxiixi doono. markaasi wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inay dhacaan arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xukunka sii joogo ilaa 2027 iyo in meesha laga saaro arrimo badan oo taagna oo ay ka mid yihiin in wasiir uusan noqon karin xildhibaan, taasi oo ka dhigan in xukuumaddan la ridi karo oo lasoo dhisi karo xukuumad kale, maadaama wasiirada ku jira xukuumadda ay yihiin kuwo aad iyo aad u badan, kuwaas oo isugu jira wasiiro buuxa, wasiir ku-xigeenno, wasiir dowlayaal iyo sidoo kale xubno kale oo ka buuxa xukuumadda oo intooda badan xildhibaano ah. laakiinse marka la ansixiyo dastuurkan cusub ayaa la tilmaamay in ay sidaas ku bixi doonaan. maalinta Arbacada ah oo loo balansan yahay in dastuurka cusub gacanta loo taago, warar soo baxay waxay sheegayaan in dib ay u dhici karto munaasabadaasi, islamarkaana Khamiista laga yaabo in hawshaasi la galo. cadaadis xoogan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintan kala kulmaya. xildhibaano xitaa kooxdiisa ah amaba xulafadiisa ahaa ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshahan, iyagoo sheegaya inaysan suurtagal ahayn in la meel mariyo dastuur si weyn markaasi la isugu khilaafsan yahay, oo ay isku khilaafsan yihiin Soomaalida inteeda badan, amaba beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo waaweyn ay dastuurkii dhammaa ka maqan yihiin, waana beesha maamulada Puntland iyo Jubbaland degta ee Daarood. si kastaba ahaatee, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaysanaya in dastuurkaas uu meel marin doono, kadibna lagu dhaqmi doono, sidaasina hawsha ay markaasi ku socon doonto. wax welibana waa suurtagal in ay markaasi isbedelaan. ugu dambeyntii, Turkiga ayaa hub nuuc cusub ku tijaabinaya Soomaaliya. saraakiil sarsare oo ka tirsan Turkida ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in hub iyo gantaallo nuuc cusub ah oo aanay horey loo keenin Soomaaliya iyo Afrikaba dhowaan Soomaaliya lagu tijaabin doono. Turkiga ayaana waxa uu wadaa qorshayaal waaweyn oo markaasi dhinaca militariga ah oo Soomaaliya uu ka fulinayo. guud ahaan saaxiibayaal, wararkeena intaas ay ku dheeyihiin. intaynu mar kale kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.